qof kasta oo dunida ku nool wuxuu leeyahay astaamo iyo alshaamo uu bulshada kaga dhex muuqdo. Dabeecaddu waa muraayadda lagu garto qofka. Waxay tilmaantaa akhlaaqdiisa, fikradihiisa iyo sida uu ula macaamilo dadka. Dabeecadaha wanaagsan waxay u yihiin qofka qurux iyo sharaf. Bulshada dhexdeedana waxay ku dhisaan kalsooni iyo xasilooni. qof kale dabeecadaha wanaagsan wuxuu kaga tagaa raad fiican meel kasta uu maro. Maxay tahay dabeecadda wanaagsan? Dabeecadda wanaagsan waa habdhaqan iyo akhlaaq ka turjumaysa naxariis, daacadnimo, edeb iyo ixtiraam. Waa dhaqanka qofka oo aan ku koobnayn hadal wanaagsan oo kaliya, balse ka muuqdo ficiladiisa, go'aanadiisa iyo sida uu ula dhaqmo dadka iyo deegaanka uu ku nool yahay. Dabeecadaha wanaagsan ee muhiimka naxariis iyo gargaar. Naxariistu waa tiirka ugu weyn ee dabeecadaha wanaagsan. Qofka dadka la damqada, dhibkooda la dareema, u gargaara wuxuu noqonayaa mid bulshada ku reeba raad aan la iloobi karin. Daacadnimo iyo run sheegid. Runta iyo daacadnimadu waa astaamaha qofka lagu kalsoonaan karo. Qofka runta iyo daacadda isku darsada xitaa hadduu khalad galo, bulshada ayaa u qiimaysa inuu yahay mid la aamini karo. Ixtiraam iyo xushmad. Ixtiraamku waa mid ka muuqda sida qofku ula hadlo, ula fariisto, ula macaamilo dadka ka waaweyn iyo kuwa ka yarba. Ixtiraam la'aantu waa fashilka ugu weyn ee xiriirka bulshada. Samir iyo dulqaad. Samirku waa hubka qofka caawiya inuu ka adkaado dhibaatooyinka iyo xanaaqa. Qofka dulqaadka badan wuxuu ka dhowrsadaa hadal ama ficil degdeg ah oo dhaawici kara dadka kale. Wanaag iyo deeqsinimo. Qofka wax la wadaaga dadka kale, ha ahaado aqoon, maqal wanaagsan ama hantidiisa, wuxuu abuuraa jacayl iyo kalgacal. Deeqsinimadu ma aha oo kaliya maal, balse waa qalbi furan iyo caawin dadka u baahan. Qadarin iyo mahadcelin. Qof kasta wuxuu jecel yahay in la qadariyo waxa uu sameeyo. Mahadcelinta iyo qadarin joogto ah waxay xoojisaa xiriirka dadka iyo kalgacalka bulshada dhexdeeda. Faa'iidooyinka dabeecadaha wanaagsan. Bulshada oo xasiloon noqota. Marka dadka ay isu dhexgalaan dabeecad wanaagsan, waxaa abuurma kalsooni iyo nabad. Qofka oo sumcad iyo sharaf ku yeesha bulshada. Dabeecadaha wanaagsan ayaa qofka ka dhigta mid lagu xasuusto xitaa geeridiisa kadib. Dareen farxad leh iyo wanaag. Qofka dadka u wanaajiya qalbigiisa ayaa u adeegaya, wuxuuna dareemaa rayn kororka iyo xiriirka wanaagsan. Dadku waxay jecel yihiin qof kale dabeecad wanaagsan, waxayna rabaan inay la joogaan oo ay la shaqeeyaan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa tusaalaha ugu wanaagsan ee dabeecad wanaagsan. Qur'aanka ayaa lagu xusay, adigu ma tahay mid leh akhlaaq wanaagsan. Culimada Soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka waxay bulshada u hogaamin jireen edeb, xushmad iyo daacad. Qoyska iyo bulshada maanta qofka edeb iyo akhlaaq leh ayaa inta badan la doortaa inuu noqdo hogaamiye, sababtoo ah dabeecadiisa wanaagsan ayaa dadka soo jiidatay. Dabeecadaha wanaagsan waa dahabka nolosha. Ma aha wax la arko oo jir ahaaneed, balse waa quruxda ruuxda iyo muraayadda qalbiga. Qof kale dabeecadda wanaagsan wuxuu bulshada ku abuuraa farxad, kalgacal iyo horumar. Maalinta aad dunida ka tagto, dadku ma xasuusan doonaan hantida aad leedahay, balse waxay xasuusan doonaan dabeecadaadii wanaagsanayd iyo raadkii aad kaga tagtay noloshooda. Waa mahadsantihiin jaalayaal.